السلام عليكم. وبعديجدا آفada COVID-19 ee dunida oo idil saameysay taasi oo marisay marxalad adag oo aysan sahal ku ilaawi karin ka hor istaagtay la noolaanshaha eheladoodii ay jeclaayeen nolosha dhaafisay saaxiibo badan oo isku xirfad ahaayeen kuwooda maanta noolina qatar gelisay badqabkooda caafimaad ayay dhexda marada ugu xirteen si ay u badbaadiyaan nolosha muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed madax meel ka sareysa oo la salax ma jirto maanta waxay noo tahay dhiirigelin shaqadii iyo halgankii aan soo wadnay oo wali u sii baahan inaan dhaxda u sii xirano in madaxdii ugu sareysa wadanka madaxweynaha jamhuuriyadda uu leeyahay waa mahadsantihiin inaad dalkiina u adeegteen. Tani waa natiijo horudhac oo mahadnaq iyo bogaadin ah oo ka dhalatay go'aankoodii nafoornimada ahaa ee ugu adeegeen dadkooda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana casuumadan gaarka ah ku maamuusay maamulka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha iyo adeegayaasha caafimaad ee ka howlgala qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimadda dalka kadib dadaalkii mugga weynaa ay ku bixiyeen ilaalinta badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. kulanka oo ay goobjoog ahaayeen wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayay maamulka wasaaradda iyo howlwadeennada caafimaadku madaxweynaha kula wadaageen warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee dalka halista cudurkan safmarka ah u diyaar garowga marxaladda saddexaad ee safmarka iyo duruufaha ay ku soo shaqeeyeen halyeeyada caafimaad ee u taagnaa samata bixinta dadkeena. dadka ku hortaagan madaxweyne waa dadkii runtii aad iyo aad u soo dadaalay wareegii koowaad wareegii labaad caawiyaga laga jooga laakiin waxay masalayaan dhammaan shaqaalihii caafimaadka gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya COVID-ka wareegii koowaad iyo wareegii labaad waqti badan ay ku qaateen isbitaalada ay joogaan sidoo kale agaasimayaasha iyagana waqti ayay la qaateen isbitaalada oo maamulkii guud iyo murugtii la qaybsiga iyo garab istaagii waxay ahayd wax marqaati aan ka wadanahay waa u mahad celinayna waxa kaliya ah haysan baariintiga looga badbaadi karo oo cilmiyeysan waa talaalka in si aggressive ah oo xoog ah dadka loo talaalo oo gaar ahaan dadka 50 sano ka weyn oo fariinta madaxweynuhu ay noqoto in dadka la talaalo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalada nafurka ah ee ay ku bixiyeen ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed waxa uu soo bandhigay dadaalada ay dawladdu gelisay kor u qaadida adeegyada caafimaad ee dalka iyo guulaha la taaban karo ee laga gaaray xakameynta cudurka iyadoo mas'uuliyad gaar ah la iska saaray bixinta xuquuqda iyo daryeelka adeegayaasha caafimaad. waxaad hadiyo xaqiiqatan waxaad geesiyaa yatihiin u soo jeeda habeen maalin sida ay u badbaadin lahaayeen waa loo safmarka COVID-19 soo ritay aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa oo waxaa qabateen waa wax runtii aad iyo aad lagu amaano lagu faano marka dadaal way hadda wax loo yaala iyo ilaahay inaan tawakalno waa dhab labada isbitaal waa ku fakarnay laakiin haddee ma qaadi karo magaalada 3 milyan ma qaadi karo oo waxaa laga yaabaa badan inaysan soo gaarin isbitaalka soo gaarin laakiin haddii aan isku tashano xooggeena iyo awooddeena aan isu geyno waxaan aaminsanahay in wax badan aan qaban karno. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in loo hoggaansamo talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabkooda iyadoo ay weli taagan tahay khatarta cudurka. madaxweynaha ayaana tilmaamay walwalka ku aadan halista ka imaan karta mowjadaha cusub ee cudurka safmarka ah ee COVID-19 isagoo booriyay muhiimadda ay leedahay in la qaato talaalka cudurka COVID-19.